kalfadhigan caadi ahayn oo maanta xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isku yimaadeen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shirgudoominayo gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa lagu ansixiyay daraska miisaaniyadda 2019 oo hore golahani uu keenay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Sharaab. Daraska miisaaniyadda 2019 ayaa in muddo doodadu waxay ka socotay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay maanta badiba isku raaceen ansixinta miisaaniyadda 2019 gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay xildhibaanadu u codeeyay daraska miisaaniyadda 2019 hadalkaana joojiyo lixdan iyo afartan xildhibaan waxay ansixiyeen miisaaniyadda 19 oo la socda lifaaqa gudaha dhaqaalaha Ali Qamari sawir qaadasana Cabdirashiid Daahir Faye telefishinka Badda Cas Hargeysa.